dabaaldega xuska 18 May ee soo noqoshada qadiyada iyo madax banaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu xusay magaalada Loyacado halkaas ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyadoo munaasabadani ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaasina ay guud ahaan 15 May guud ahaan xilligii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay Soomaaliya inteeda kale kala soo noqotay madax banaanidii munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan mas'uuliyiinta heer degmo saraakiisha ciidamada booliska iyo militariga kuwaas oo ka sheekeeyay duruufaha ku gadaameen gaar ahaan iyagoo mahadnaq ballaaran u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xuska maalintani qaarkood waxa hadaladooda ka mid ahaa maanta laydii sheegi maayo waxay tahay 18 May anigu ma garanay anigoo ardaya oo maxay ahayd ciyaara ayaa tii la ii qabsaday xamarkeen baa lagu yiri ma fiidii lacagteedii bixiya mise nool baa ka dhigtaa lacagtaya xamar baan tagi jiray wax naga xiran walaalayaal waa maalintii guusha aan dhalinay ee maxay la wareegnay go'aanka maanta معاكم الأغاية ما تهندي جبوا إعلان بقرايا إنتي ما يرو رواد بلتا مرويك يم ضنياشا مدحض قبلك تدقمدا دلنيرada kulli salaanta muslimiinta ku salaamaya ee halkan isku timintay saaka waxaan yar ka sheekaynayaa maaragtay nabadgelyada iyo maalinta maanta halkan loo joogo qiimaha ay leedahay ku fadhida Soomaaliland maanta qiimaha ay leedahay waa qiimihii lagu soo gooyay koob iyo 9 lagu soo gooyay Burxawey kii Soomaaliya lagaga soo go'ay wey kii maaragtay 20 sanadood maaragtay 19 sanadood dagaalku ku socday wey tii maaragtay ay halka guryo hooyooyin haween iyo ubadba ku dhintay weeyaan tii guusha inta lagu soo gaari weeyaan maanta Soomaaliland maaragtay tuutaa iyo quruxda iyo ubadka iyo nabadgelyada ay ku leedahay weeyaan maanta taay lagu dayaliyo dadka ninkii dayal u qaadanayo maaha tudayala maaha wallahi ninkii dayal u haysto maaha wallahi dayal maaha taalkaabaa kaga baxaya nabadgelyada maaragtay gobernatore maaragtay rahmatullahi wa barakatuh marka hore mudaniye marwareelo Loyacado waxaan idin soo gudbinaa salaam kaliya laaba sida sharaftiya karaamada leed uga soo qayb gashay munaasabada 18 May marlabaadka waxaan salaamayaa madaxda gobolka iyo degmada marka kale waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland salaam kaliya laaba ayaan gudbinayaa marka saddexaadka waxaan salaamayaa wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka qaranka waxaan leeyahay salaam kaliya laaba ayaan gudbinayaa marka saddexaadka xubnaha ciidanka qaranka iyo xasaskooda meel kastoo ay joogaan salaam kaliya laaba ayaan gudbinayaa waxaan leeyahay ciidan maanta ee 18 May oo ah maalin qiimo iyo qadarin mudan aynu ku noolaano barwaaqo iyo bashbash bismillahir rahmanir rahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدك ما هذا ما تلو حسكر إلهي نوس ورجليه إلنا نبتكليه هالكن سكون نمادنا هاي نحفلته قبصنا هاي نخدها ما شادنا إنه هو عبسي يشكي يعني واحد إنه قتشري إلهي نوس ورجليه ما هذا إلهي نوس ورجليه إنه الدولة وخلت دنبلنا أو الشرع له
inaynu 22 sano halkaa ku dalbaadegno ilaahaasa mahadle marka labaad waxaa ammaan mudan oo aan u mahadnaqayaa intii isku xil saartay qabanqaabada iyo suuragelin waxaynu xusaynaa maanta waa sanad guuradii 22aad ee ka soo wareegtay dowladnimada Soomaaliland 22 sanaba waxaynu isugu imaanaynaa u dabaaldegayna oo mar kasta aynu ka hadlaynaa ixtiraafka Soomaaliland mar kasta abiilkeenu ama halku-dhigeennu wuxuu ahaa si kastaba ha ahaatee xuska maalintani ayaa si weyn ugu weyn guud ahaanba carliga jamhuuriyadda Somaliland iyadoo ay tahay maalinta ay ku guuleysatay la soo noqoshada madax bannaanida Somaliland. Xuseen Maxamed Cabdilaahi, Shinila News, Saylac.